dadka qaar waxaad arkaysaa social media ku jiro ku oranaya anigu gabadh caana maan guursadeen adigu maxaa tahay markaa waxaad adigu samaynaysa dee haddaad wax xun u arkaysa maxaad u samaynaysaa in the first place السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saaxiibayaal maanta waa maalin cusub muuqaal cusub iyo barnaamij cusub waxa barnaamijkan waa podcast maanta waxaynu soo casuunay oo waxa barnaamijkan ina la lafa guri doona oo qodobo aad u fara badan ka wada hadli doona saaxiibka Cabdalla Jamaal Cabdalla soo dhawo waayahay Mr. Cabdiraxmaan Cabdiweli saaxiib waan dhawahay niyo maanta waxaan ku beegmay barnaamij cusub saaxiib sharaf weyn bay ii tahay asxaabtaadana si gaar ah u salaamaya waliba waxaan ku sii beeganay dabaaldigii 500 milyan 500 baynu galnay runtii anigoo fursadan ka faa'iideysanaya aad baad u mahadsantiin saaxiibayaal waan idin mahadnaqaynaa 500 oo qof hadii inta meel la istaajiyo waxa weeyaan la israahdo tiriya waxay buuxinayaan garoomo magaalooyin 5 milyan qof oo waxa weeyaan wallahi runtii aad baan ugu faraxsanahay inay waxa weeyaan maanta aynu halka marayno insha Allah milyankana waynu isku gaari doonaa aad baad u mahadsantiin inta adal xiisaysay maxaad baratay niyo horta dalxiisku qiimo gaar u leeyahay yani waxaad baranaysaa dad cusub dhaqan cusub baad baranaysaa mid kale ku sii jecelahay mataqaana safarkuna arsaaqdiisu wada waa ila ogtahay dad badan way ila arkeen safarkiisa arsaaq gooniyo wataayo yani markaan Hargeysa joogo iyo markaan meel kale joogo markaas ay lacagu aad ii soo galaan markaad baxdo ay bahashu furantaa raxmadii furan mid kale dadku waxay u maleynayaan marka safar baxdo in yani kharash badan ka baxayo waa markuu kharashku soo galiyaba waan bartay waan fahmay hadda yani Hargeysa ma sii joogo karaba 3 cusub xigto way go'aalkina sii joogaba waad ka jecel balina iska yar baxo oo dhaqan cusub dad cusub iyo de ma sha Allah arsaaqdi Ilaahay waasac weey iyo lacag badan oo soo galay waarun wallahi dalxiisku horta waa qayb nolosha kamida dadku laba way kala baxaan oo dadka qaar dalxiiska jecel oo laakiin awoodi waayay iyo dad dalxiiska waxa weeyaan aan aad u sii danayn hadana dhaqaalihi haya nin aan maalin TikTok ku arkay nin weeraaba wax oranaya dadku qof garanayo aan garanayo qof aan garanayo oo garanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qul siiru fil ardi wanduru dhulka socda oo eega waxa weeyaan in la socdo oo la dalxiisana maaragtay xikmada ku jirta waxa weeyaan horta in aad ogaato Ilaahay dhulka uu abuuray inaad horta ku rumayso Ilaahay dhulka uu abuuray inaad ku rumayso oo waxa weeyaan inaad dadkii hore iyo asxaabii hore iyo waxa weey qarniyadii hore wixii ay inooga tageen Ilaahay iyo taariikhii ay ka tageen aad soo aragto aad soo barato adduunka de meel kasta dadku waxbay kaga tageen iyo in sidoo kale maaragtay aad naftaada wax badan aad baratido maaragtay aad indhaha ku soo indhoogsato oo waxa weey jawi aad soo qaadato markaad aragto hadda xataa aad u fiirsato tiimka Gibili meesha ugu dhawaan tagi karna ma bal maanta hadan qiino jirta 20 daqiiqo soo ma hatta 5 daqiiqo xataa bal markaad Gibili dhan markaad yar baxdo iyadoo maanta iska joogo yani farqiga u dhaxeeyo wad garan kartaa soo emotional ka noqonay wad garan kartaa inta aad wax si arkaysaa aad marba wax cusub waad arkaysaa geel dhan oo la wada arkaysaa markaas inta parking gashaad iska dhex galaysaa ayaad halkaas ka wareysanaysaa waxa ka timaadeen hay'adaha kilometer qaar baa ku dhayn waxaan ka keenay xagga iyo xaggaas marka YouTube-ka duubay Cabdalla waxaan kugu dacayeeyaa Cabdalla isqor dadka aad markaa u tagto waad dhex gashaayo lagama soo dhex saaro maxaa kuu sahlay inaad dadka dhex gashido aad markiiba dadka ku bilanto wallahi horta isqor ka aad u dheeriyay sheegi doonaa laakiin waxaan jecelahay يعني هذا قف حقه إسكا أركو horta marka koobaad dalma la iska meedhaan joog baa lagu oranaya marka hore moogti marka hore inta saaw eegon xaaladdu arkadeen degan yahay oo kale
waraga waan salaamay baa dhacday marka salaanta iga qaadaan bartaasan ka qiyaas qaataa haddii si wanaagsan salaanta inay iga dadka dad soo qaadaan dhaweyn leeyihiin kale haddii si wanaagsan salaanta iga qaadaan markaasaan la fadhiistaa ayaan la sheekaystaa iyo xaggaad ka timaadeen xaggaad u socoteen oo xaggaad wax ka cunaysaan oo ma sidataan oo maxay kale oo haddaan kiyagoo dee markaa gacanta kula jirin waan iskala galaa oo waxaan xasuustaa maraan u soconay laag casal jabuuti aan usii soconay aan qolo dalxiisayaala oo iyaguna sidooda u soconay wanaagsan u gogladeen cunto wanaagsan cunayaan anigii cumreyn baan ahayn aniguna xumeynayna sidii waxaas lama noqon doonto markaan doonto badan aanul maadeer gacis ma celiye raggan hidiisa guud iyo wixii la hayuun baa dhex yaale ee faraham isla gelina saan iskala soo qodobkii idin daraaba ka hadashay markaa saan la soo cunay isbarnay ilaa imika saaxiiban snapchat-kan dadkiisu ugu wada jirnay goboladaas ka kala yimaadeen deedna wallahi horta waa run cabdallah waa waxyaabaha ugu waaweyn ee anigu aan aaminsanahay safarka inaynu ka dhaxalno waxa weeyaan horta waa dadka magaalo kasta oo anigu aan tegey dadkii magaalada aanu iska baranay ee igu soo dhaweeyey ee maaragtay magaalada igu soo warwareejiyey waanu wada xidhiidhnaa marka iminka qof haddaan magaalo tago qofka magaalada magaceedaan ku seef gareeya waxaan xasuustaa mar aan China tagay Hong Kong baan tegey niman dhalinyaro aad iyo aad u wanaagsan dhammaantood halkan baan ka wada salaamaya ayaa waqtiga ay soo dhaweeyey dhammaantood Naasir Hong Kong aadan Hong Kong waxay igu wada seef garaysan magacyadoodii marka waxa weeye waxa ugu weyn ee safarada ama inaan dalxiista laga dhaxlaa waxa weeyaan waa dadka dee wax la beerto oo dadka ka wanaagsan ma jirto cabdalla waxaan ku weydiiyey intan iminka aad safraysay meeshii aad odhanayso waa meeshii ugu quruxda badnayd waa halkee horta ma hadday noqoto deegaanada ay Soomaalidu degaan mise caalamka kale horta deegaanadii Soomaalidu degaan meeshii ugu quruxda badnayd aad bood aragtaan jecelahay saacadii horta aad bay qurux badantay goob weyn iyaduna aad bay u qurux badantay يعني ما إلهي كريو جوبين وميل هذا قروح بدن ولو أيدنا ما نتحس أيدنا ما نقاد وكل أي حد وحن سعني صحراء وحن سعني بور وحن أكسو عني وبي وحن أكسو عني بحر صرنا نسكوذ من عياله وحن عندنا سايمون كانوا وقاد قلنا معيسين هاي وحويا لاندسكيب كا sidoo kalena Saacadiin waxyaabahan markii aan tagay aan kula yaabay waxa kamida in badda marka hore laash baad ku haysanaysaa dadda waad ku soo dalxiisaysaa dadda baddu caarisa oo soo lugeynaysaa soo socodka soo lugeynaysaa soo socodka waad ka soo tuuranaysaa inta yani safaradu markaan horta bageli dambad ku hagaagtay waqtigaada aad ugu tagtay mise gelin hore waxaan ku hagaagnay inaan hore ugu soo noqono doonayno waxaan ku hagaagnay ilaa 10 subaxnimo meel markii aan toosnay badda iska tagnay لكن قلنا دم مركز عد حقها كان قبضت مارت مركز آد وقصي قروح بدن. والله وان داود المقال آد قروح بدن بتكسو سميسن. يوتيوب ملاش هذا سيدابو أسامي. نيوهرت يوتيوب كانوا يروحوا يبري. وحن آمن سنة هاي. هل منت كوغير صماه. waxaan aaminsanahay 3 minute ee Soomaaliyeed muhiim bay tahay hadan sababeeyo yani 3 yani minute kibada lacag ba sameyn karnaa waaran wa minute walba lacag oo sameyn karta waaran bartaada maanta fadhiisato oo wax bulshadii qanciyaad u keento oo ridaaduna faa'iido wad ka haysataa dadkiina waxba u soo gudbis haday noqoto madadaalo haday noqoto inaad wax barto iyo haday noqoto inaad wax u sheegtad xog muhiim aad u sheegtaba marka YouTube waxaan ka bartay من والبا وقت جيجي صومر إنه مهم بإيه إنه مهم يعني وقت إسكالهم أو ما وقت كان خسارنا يا ميل هبلة وقت ما كان خسارنا يا جيم وقت ما كان خسار يعني وقت بيننا إنه خسارة الله يبقى كفاية ما هذه برجع الريل لو نشري وقت واسف أنت أنا كنت شارين بالله والله يوتيوب كان أنا سؤالها نسويتي وحكم ذا إن نلشنا كهر يوتيوب كهر يكذب وما هي فرق يقول حياة نيويورك يوتيوب كهر arday baan iska ahaayo de waxbarashadeedii baan ku sii jiray waxaan bartay oo computer science uu ahaayo computer science kale wax ku jira multimedia ku jira multimedia baan ka sii midhaliyay maanta sida adduunka arkaysa digital buu isku bedelaya wixii ba xagga baa isugu wada keenay marka xaggan haddaad ka sii faa'iideyn weydo maarta wixii wax ku dhaafayaan micno dar okay youtube ka horta wallahi waa qof bas buu u saameeyay لكن أنا جاي من حتى ليودين هاي اللي يقولون لها
youtube waxaan kusoo biiray 2 sano iyo bar ka hor haddii la iweydiin lahaa 3 sano ka hor ama 4 sano ka hor markaa ardayga ahaa youtuber baad noqonaysaa soomaalida oo dhan baa ku baranaysaa adduunka oo dhan baad waxa weeyaan ku safraysaa waxa weeye kolba meesha jeceshaa tegaysaa horta wax aanan u qaadanayn bay ahaan lahayd anigu youtube-ka markii aan bilaabayey Bangladesh baan joogay adiga youtube-kaagan daawan jiray anigu fideoyadii aan daawaday waxaa ka mid ahaa video aad berbera boorama aad ka samayseen oo adiga iyo Caydaruusi aad ahaydeen oo aad wadada sii maraysaan oo garoonka qayb galaysaan oo waa yaabanaade marka horta wallahi youtube-ka meel dheer baad ka keentay laakiin nolosheena siyaabo kala duwan buu u saameeyey youtube-ku inaga waddankeena dhaqaalihiisa dadka gacanta ku haya horta waa dadka waaweyn waa generationka waaweyn dadka yaryar fursad ma hayaan ay maaragtay lacag badan ku samayn karaan ama ku shaqayn karaan sababtoo ah wax kasta noloshiiba wax gacanta ku haya waxa weeyaan dadka waaweyn baa gacanta ku haya say doonaan baa soo shaqeeyaan marka dadka loo shaqeeyaana waa dadka waaweyn marka waxay noqotay in dadku ay isku wada si u ekaadaan iminka waxaad arkaysaa dhalinyaradeenna dadka oo dhan isku wada sibay u labistaan dhar safaariya bay xidhaan oo dhexda ka xidhan isku wada sibay u jaran yihiin isku wada sibay u eegyihiin ma aha sida iyagu jeclaayeen ee waxa ku kalifay bay-adda marka ay ka shaqaynayaan iyo cidda ay u shaqaynayaan iyo maaragtay meesha ay joogaan marka waxaan odhan karaa social mediahu fursad buu siiyey dhalinyarada qofku lifestyle-ka uu jecel yahayna uu ku noolaan karo stillna uu lacag badan samayn karo anugu waxaan aaminsanahayba dhalinyartu umaba baahnaba xataa odayaasha inuu u shaqeeyo xataa inay salaamaan xataa inuu tagaan haddaan sababeeyo maanta haddaan yani dadkaa weynaad sheegaysa xataa haddaan salaa xataa wax xataa ganacsigiisan amba shirkadunu haysto amba wasaaradunu haysto xataa fikir kusoo godhi wuxuunba uga dhigay inaan wax uga baahanay albaabkaaba lagaa celinaya waad sugaysaa yood orkayaba gaari u dhaqaaqayba marka anu waxaabaan aaminsanahayba qofka dhalinyartii hadduu teleefon u haysto haddii internetka imika aad buu jabiyay sidii hore imika marba marka ka dambeysa 5G 4G marba marka ka dambeysa dee horumar baan sii gaadhin xagga internetka qofka dhalinyartii haddii uu teleefon u haysto uu internetna haysto maba baahnaba qof weynba inuu wasaarad taga iyo inuu qof u shaqeeyo haddaad laptop iyo telephone xataa laptop haddaad laptop iyo telephone iyo aad haysato internet ama mobile iyo internet qofka haysta noloshaada wax badan baad ka bedeli karaysaa qofka mobile iyo internet haysta ee hada shaqo la'aan baa jirta wallahi wax kulu jeeda aniga ii ballami okay lacagta youtube-ka laga sameeyo iyo social media oo dhan dadku badanka waxay isweydiiyaan waa lacag intee leg dadkuna si saxa ugama wada hadlaan oo maaragtay qof qodob ay yidhaahdo anigu bishii intaasaa ay soo gasho inkamkiisa sheega ma jiro laakiin lacagta social mediaha laga sameeyo waa intee qofku intee leeg buu lacag ka samayn karaa markuu qof soomaaliya yahay youtube-ka iyo social media oo dhan horta tiro kow ka bilaabantay ilaa intaa jecesha baad gaadhsiin kartaa lacagtuna waxay ku xidhan tahay waa adigii activity-gaaga wiigii haddaad 4 muuqaal aad soo geliso waxaa laga yaabaa bishii oo kale inay soo galaan 3,000 ilaa 4,000 waa haddii aad youtube-ka iyo facebook-ba aad ka wada shaqaysiiso weliba nimkana ku darso tiktok-giina lacag baa loo tiktok-giina ma adigoo maanta tiktok iyo youtube iyo facebook iyo xaysiisyada kale ay ku dheer yihiin ugu yaraan wuxuu shaqaynayaa ninkaasi 6,000 ilaa 5,000 u shaqaynayaa markii u yartaana ninkaas wax uu shaqaynba waniga 3,000 shaqay wallahi waarun dadku badanka lacagta social mediaha si dadka social mediaha ku jira si sax uga wada hadlaan laakiin anigu waxaan aaminsanahay runta marka laga hadlo $10,000 qofku hadduu si fiican u dadaalo bishii ka samayn karaa youtube okay haddii la eego shaqooyinka waddankeena ka jira qof $10,000 bishii ku shaqayn karaa ma jira dee مع وسيرتها كل شغله laga yaabo in madaxweynayaasha marka wallahi dadku social media dadka ka qaylinaya maalin baan waxaan ka sheekeynay social media qofba feel buu doortaa
oo uu ka hadlaayo dee dadka kaalin buu ku jiraa ha ani waxaa aaminsanahay dadkani kaalintan maaha kaalin ay iyagu doorteen dee iyagu doorteen ee dadkaa u dooray dadka iminka doorteen. qof baa kuu imanaya wuxuu ka odhanayaa social mediaha tala iga sii anigu hadduu qof igu idhahdo tala iga sii social mediahan rabaa inaan kusoo biiro talada ugu weyn ee aan siiyo waxa weeyaan youtube baad rabtaa inaad samaysto soo maaha waxaad samaysaa 5 program oo kala duwan samee haddaad doonto dalxiiska samee haddaad doonto reaction bixi haddaad doonto kan samee yacni kaad u malaynaysa inay dadku jeclaadeen kaasaa ku suudgaraynaya dee ila dadku waa reflection waxa weeyaan waxay kaa arkaan iyo siday kaa arkayaan unbay kaa sheegayaan ha marka social media waa bad laakiin waxa weeyaan qofba waxay ku xidhan tahay siduu ugu dadaalo iyo siduu u jecel yahay inuu ka midho dhaliyo markaad cabdallo youtube-kaad ugu soo gelaysay maxaad kuu qorshaysnaa maxaad islahayd maxaa kuu baxayay yaad hiigsanaysay aan higsadabe horta marka hore xafiis baan ka shaqaynay yud kamarad baad hor istaagi xataa maskaxdii sida habeenku ma seexan laakiin marmar duhurkii markaan qadeeyay maaragtay intaan geed hoos fadhiistaan live instagram iska soo geli jiray geedkii mar saan geedkiisa hoos fadhiyun baa dhowr qof igu oo geedkii ma tagayn maanta macbiil bay noqotay xafiisna waan ka shaqeeyaa waxaan u shaqayn jiray astaan tv marka rasiifaradan boorgaraamin jiray mataqaanaa weli cilmigii resiifadada lagu program waan tagaa iminkasan ka shaqeeyaa customer care kan fadhiistaa koolka ka qabtaa dadka laakiin kuwa bay gartaa dadka waan adiga ayo deedna arrimahaasaan ka shaqayn jiray ninaan saaxiibnay oo abaal weyn aan u hayo ee igu kaale waxaad life-afkaaga waan arkee waxaad noo samaysaa muuqaalo dalxiiska ku saabsan isla astaan tv ka samee waan yaabay muuqaalo xakan ka kaa dhowr linki buu soo diray dad caddaan uusan sameynay dalxiis iyo waxyaabihii ruud ka raac buu ku haa waayi baan ku yidhi xaggaan ka bilaaba talaa haddana igu caddaatay waxaa idhi niyow waa dee jimcayaashan oo nigiska tegi jirnay geel iyo caana geel iska soo cabi jirnayo waxaa idhi toontan kuu dhawee geela laga soo cabo dee tanba ka soo samee tii baan ka soo sameeyo yacni dee maanta marka muuqaal sameyno dee intaa markiiba iska soo markiiba intaas ka soo hawshu waa iska dee waxaad la qabsatay waa run hore laakiin salaad subax baan kacay hawshan waa geliga dambe nin baan sii balaminayey ninka walaalana sii balaminayo daroontii ruudkii baad saxaysay wixii baan sii balaminayey armii baan sii balaminayey dee arig bahalkii markaan soo sameeyey baan u keenay nin agaasimayo suuri maasha allah wallahi si fiican baad u samayso ninkaas isagu dhiirigeliyey deedna waan soo daayo kii labaad sidii baan soo daayo kii saddexaad sidii soo daayo deedna markii dambe youtube maad ku yara eegtid marka adiga kaagi sameynay okay tv-ga aan sameynayey kuwa markaa aad samayn jirtay tv-ga la gelin jiray tv-ga markaa ku jiraan haa ku jiraan deedna waxaa nin baad youtube ku eegtid deedna youtube-kii baan sidii ugu sameynay marka waxa aan jirinba kan barnaamijyada kamarada qarsoon kuwaasna waan jeclaan jiray berigii hore waa iska daawan jiray rabadaanada oo tala soo dayn jiray deedna waxaa niyo maad aad ka samaysid baniyo wadadiina haddaad ka samayso ka waran deedna ay duruus inaan saaxiibnay oo iminka jooga Canada oo qurba joog noqday aan kuri saaxiib ina mar barnaamijkaasaan samaynay wiila yaab horadoon ha tag bigu dhigay marka aanu waxaa muuqaaladan dalxiiska waxaad samaysid isaguna ha sameeyo barnaamijyada markii aan soo diyaar garoonay aan action wala bilaabaya qofka soo socda yani hawsha ku samee haddii uu ku dhahdo iga daayina waan ka dhilid karin doonaa ayuu niyo iga daayo ku adagtay barkaada ila soo istaagado wala soo istaagay sidii baan ku wadnay step by step mar badii bulshada hadii waxaan ku si wad ku fiicantay ka kale noo soo daay dad baa ku soo garaacay waarday soo daayo de sidii baan idhi ma sha Allah kaas shaqadii sidii buu noqday wallahi ha social media waa waxa weeyaan waa iska nasiib horta wax kasta qoraalka Ilaahay bay ku qoran yihiin marka aad dalxiisayso ma ka baqataa shilalka ama diyaarada noqdo ama gaari inta badan ma horta diyaarada iyadoo iska yar normal laakiin xataa gaariga laftigiisa kama baqan jir anigu qof iga dalxiis badan ma jiro baan u malaynayaa haddana qof iga baqdin badan ma jiro markay noqoto gaariga mar kastoo aan gaari raaco waxaan isiraahdaa way ku eeg tahay saacaddaas way ku eeg tahay wallahi gaarigu niyo aad buu u khatar badan yahay shilka horta kama baqan jir haddii diyaarad noqoto haddii gaari noqoto midnaba kama baqan jirin xataa waan ku dhex seexan jiray laakiin ilaa maalinkii aan arkay ninkii aan saaxiibka ahayn ee ila socday ee gaariga iga horeeyay saarna Allah u naxariiste iyo ninkii kale la socday
isagoon aroos ahaa dhowr bilood unbuu aroos ahaa raggii aan wada soconay markaan ku waayey sikino markaan ku waayey wax sikina ka yar markaan ku waayey habeen horena anigii isaga 3 game iska wada ciyaarin iska wada caweyn habeenkii labaad jimca ahayd khamiisaan iska xidhnayn suldaan baan iska fadhinay waan iska caweyninay waan sii caraabinay gaariga horreeyo raxana xaafadda ku sii socday gaari wadada yaalay markii dambe uu dabada ka galay ilaa markii maalintii aan arkay ninkaan saaxiibka ahayn allahu naxariista cabdicasiis ha wallaahi waxay ka mid ahayd geeriyihii ugu naxdinta badnaayee aan arka anigu waxa weeye aan usoo taagnaabay ka mid ahayd yani waan saameyn xoog labay lahayd sidoo kale allah u naxariistee cabdicasiis aad iyo aad baad saaxiib u ahaydeen dadkana daawanaya waxaan ka codsanaa inay usoo duceeyaan in ilaahay qabriga u waasiciyo idinkana alla jannada haydi ku kulmiyo cabdicasiis maxaad ku xasuusataa wallahi niyo ninka horta saaxiibkana tumaananu kala harin wanigi markii ku yiri hadii aan maanta uu cabdicasiis noolaan lahaa ilaahay naxariisto wiilo socon lahaa yani inta badan habeenkii waan iska wada caawin jirnay shilka horta sidiisaba kama baqan jirin iska caadi ahaan mid kale waxaan aaminsaneen xataa bulshadu waxay aaminsan tahay shil magaalo ka dhaca waxba lagu banqo war haddii la yidhaahdo anigu magaalo joogno beelka xidha waa la yaabi jirayba aad baan la yaabi jiray beelkan horta maxay kaaga cadibayaan baan jiray marka diyaaradda raacayna lagaga bilaabaa hargeysa marka ka baxna horta beel xidhan lagaga bilaabaa waan karaahsan jiray yani waxbaan xaggan iska saari jiray beelna ma xidhan jirin markii naagtu dhaafto diyaaradda ka shaqeynaysa haddana aan iska furi jiro naga daabaarin jiray haddana ilaa maalinkan dul istaagay hataa tooshkan saa ugu ifiyey moogta tooshkan saa ugu ifiyey markaan arkay ninkii aan wada soconay iyo ninkii kale aan arkay iyagii inaanay nooleen ilaahay baa yaa ii keenaba qofkan waa aan idhaahdo cabdicasiis baa dhintay yani wuxuu ka hor dhintay meel geemka lagu ciyaariyay dalfirka lagu caweeyo meel heblu ku ag dhintay yani waxaa moodayna iska kaftamay moogta naga daani ciyaarta dee maxaa qof baan yani dhintay baa lagu kaftamaa wali aamini kari waayey moogta kuwii asxaabta badanka dadkeenuna dhalinyaradoo dhan waxaa dadku ma aaminsana qofkani noloshu waa iska riskiba in any minute buu qofku bixi karaa any second yani waad bixi karaysaa waa sababta loo yidhaahdo waxa weeyaan saad jeceshahay u noolow yani haddii imika lagu dhahdo bisha soo socotaad dhimanaysaa maxaad samayn lahayd waad cibaadaysan lahayd dadkay saamaxaad odhan lahayd waad niyadaadaad waad diyaar garoobi lahayd marka waxaa laynaga rabaa inaynu imika sidaa u noolaano sababtaa noloshii baaba iska riskiyo waxa weeyaan any minute buu qofka caleentiisu qallali kartaa waa taleedhaa yani u cibaadayso sidii qof berri toola nafta laga qaadayo una shaqaysa adduunka sidii qof aan weligii dhiminahayn yani taa waxaad ka dhex arki karaysaa hadday inaanay meel iska fadhiisto iyo iska qosli ciyaar inaanay muhiim ahayn adduun iyo aakhiraba in loo shaqaysto inay muhiim tahay qurbaha sidiisaba iyada maxaad ka aaminsantay wallaahi qurbuhu horta dee waa qof kasta oo soomaaliya waa hamigiisa koowaad qofka horta inuu qurba tago oo qurbaha soo eego oo ku soo noolaado laakiin marba mar ka dambeysa markaad aad sii yara weynaato wax kaasii yaraanaya weeyaan waxaad ogaanaysaa in waxa weeye nolosha meel kastoo aad ku noolaatidba aad ka samayn karayso waxa ugu weynee dadku maaragtay ay qurbaha u rabaan inay u tagaan wax kale maaha inay shaqaystaan oo ay lacag badan sameeyaan nin baan maalin tiktok ka daawanayay nin weyna oo yidhi yani lacagahan qurbaha laga soo diro way fasahaadiyeen way curyaamiyeen dhalinyaradeenii waa run ilaah innaga dadkeenu waxay aaminsan yihiin dhalinyaradeennu marka uu qofku waddanka joogo inaanu waxba samayn karin ee awooddiisa iyo baalashiisaba uu la soo bixi karo un maalintu saa maraykanka dhex tago lacagtan waxa weeye dadka loo soo diro qurbaha jooga ay soo diraan ee waxa weeye waddanka u soo diraan dhalinyaro badan bay hudimalaha ha waxay dadka awooddoodii bay qarisay macnaha qofku intuu shaqaysan lahaa iminka caalamkaa kale afrikadaa kale dee dadku sidaynu inagu isu caawino isuma caawiyaan soo maa waxa weeye waxaad arkaysaa dee dad baa ka soo baxaya dee aada u ismaarta oo waxa weeye IT-ga ku tegey waxaan kale ku tegey oo maskaxdoodii ka shaqaysiyay dad maskaxdoodii ka shaqaysiyay awooddoodii isticmaalay laakiin innaga
dadkeennii iyo dhallinyaradeenii qofkii lacag ma isaga socotaa ها qofkii aad uma fakerayaba ها isma odhanayaba waxbaa kaa qofku gaajadu qofka way ka shaqaysiisaa Waa. haddaad iminka gaajooto maskaxdaadu way shaqaynaysaa de إلا laakiin haddii qofka lacagi ku socoto qofka awooddiisii ba wuxuu odhanayaa dee maxaan wax ka samaynayaaba dee سوق شو يقدك haa soo ka joogu degan deedna anigu waxaa odhan lahaa bal dadka qurbaha joogaa ma lacagta bal ha joojiyaan bal bil dadka ha tijaabiyaan waddanka jooga أنا واحد مثلا ليش بابا صوب حلا ضد بدن أو كرتلة أي صوب حلا hadday joojin lahaayeen ها أد بالله شقي سنلا وحبال يعني لألف لها أبور لها شقوين بدن بقى والله صوب حلا برتاس واحد بدن بيهدي من أمسنا إنه عبد الله ha ha sidoo kalena waxa weeyaan nolosha qurbuhu heestii waxaa xasuustaa subciise ahayd nin qurbaa joogaa qaxar ma waaye intan qaad cunay baa qalbiga la hadlay wallaahi waddanka horta meel lagu noolaado meel ka wanaagsan ma jirto waayo marka dee meelaha kala joogto mar kasta waxaad iska eegaysaa un waa lagaa leeyahy meel lagaa leeyahay iyo meel aad adigu leedahay markaad ku nooshahay way kala duwan yihiin saameynteedana way kala leeyihiin بعد الحين كارح قال مركي ديارض يعني عجها كله فتح رجيسة جدا iyo markaad xuduudka wajaale aad ka soo gashaad yani xarig lugta ka soo dul qaato ilaahay ba ku dheer maxaad dareenta wallaahi waxaan dareemaa in waan laan dheereeyaa anu markaan meelaha kala joogo midig baan ka talaabsadaa laakiin markaan magaaladeeda iyo waddankayga soo galo bidixdaan adeegsadaa bidixdaan ka talaabsadaa ilaa xad marka kale waxaa isla arma hadii iska kaawan jalaabtiyo lagu xidhaaniyo de arba qof risk ku jiraa tahay ha waxa weeye khatar baad ku jirtaa ilaa xad xataa laftirkiisa xataa haddii waddanka lagu xidho يعني أصحابتها يهوي يعني شبكة كده حركة صادق يعني واحد لوري جاني تريد يموت لكن مركز في أبيه هذا كل حرنته إلهه بحر إلهه كسي دايم ويعد قبزيتين كرت شعيلك ما حد كامل سنت والله أنا شعيل كرت وحن كامل سنة وحقات وفيان jacayl waa dareen waa haddii damac weeyaan qalbigiisa dego aragtida ku daaree jacaylku wax aad wanaagsan baa ka aaminsanahay waa haddii laga daayo isku danaysiga haddaan dana kale aan lagu wadan oo beentana laga reebo waa wax aad u fiican inuna aan ka aaminsan isla su-aasha adiga laftada haddaan ku weydiiyo jacaylka maxaad ka aaminsantahay wallaahi horta jacaylku waxa weeyaan marna waa paradise marna waa war zone oo ah jacaylku marna waa janno marna waa goobaha dagaalku ka dhaca magaraasa niyo horta qofba dadku waxay dhahdaan jacaylku qofka dhowr jeer buu soo maraa aadamaha ka koowaad waa marka qofku yar yahay oo ilmo yar yahay waa jacaylkaas waa jacaylka runtaa ee bilaa danaysiga ee qofka aad naftiisa iyo soolkiisa jeclaanayso jacaylna waxa weeyaan mar dhexoo yimaadaa oo qofku wuxuu jeclaadaa qof aanay dani ugu jirin waxaanu heli karayn buu jeclaadaa dabeedna ula dhibtoodaa aad buu ula dhibtoodaa waxa weeyaan qofkaasaa silciya sababtoo haddee waxaanu heli karayn buu jeclaaday qofku labadaa markuu ka soo gudbo jacaylka ugu dambeeya ee uu yimaado waa markuu reer yeesho ee waxa weeyaan qofka marwadiisa ama saygiisa uu jeclaado markaa jacaylka runtaa horta waa kaa saameynta weyn qofka ku yeesha na waa kaa waxaan kaloo dhan si kastoo aad qof u jeclayd ama uu kuula weynaa mar kasta oo waxa weeyaan waktigu isu soo bedelo waktiga ayaa ku daweynayaba dabadeedna waxaad arkaysaa adigoo gebigaagaba dadkii aad beri hore kula weynaan jiray ay kula yar yihiin ilaa inta badan dadka waxa isaga qaldan doorasho iyo jacayl yani qofka aad jeceshahay horta waa inaad garan weydaa sabab allaale iyo sabab aad qofkan ku jeclaato waa midda koobaad laakiin haddaan idhaahdo maanta qofkan aan jecelahay waxaan ku doortay waxaan ku jeclaaday waxa iyo waxa iyo waxa hadduu qofku uu qodobeynayo taas jecel maaha waa doorasho qofkan dee uu doortay midda kale haddaad aragto qof jecel xataa haddaad weydiiso maalinkii aad jeclaatay noo sheeg ma garanayo laakiin wuxuu sarkayaa qofkiiyo yani qofkii u hinaasayaba dee bal qofkii iskumaad ogeyn yani qofkii sidaad iska wada hadlayseen
ama asxaabaad u ahaydeen ama xataa ugu talagelin bay inaad jacayl ma xiriir samayso qofkii adoo hinaasaya oo u gubanaya arkaysaa mugta marka dadka waxaan kala doorashadii iyo jacaylkii baa isaga qaldan waxna hadduu qofku qodobaynayaba waxa ugu weyne waxa weeyaan jacaylka saamaynta ku leh waxa weeyaan qofku waxa looga baahan yahay marka koowaad in horta naftiisa ixtiraamo haddaad naftaada ixtiraamto si sax baad wax u jeclaan karaysaa macnaha waxa ugu weyne ugu horeeya waxa horta inaad naftaada ixtiraamto haddaad naftaada ixtiraamayso si wanaagsan baad wax u jeclaan karaysaa oo polite ah te waxa weeyaan qofkii isma hoos dhigaysid dee mana ooyeysid mana maaragtay maalin baan waxaan meel ka dhegeysanayay nin ka sheekeynaya waxa weeyaan haddii qof aad isjeceshihiin hadda haddii qof aad isjeceshihiin uu ku idhaahdo message intu kuusoo qoro ku idhaahdo niyow maba rabo inuu xiriirkeenu sii socdee idaah maxaad ugu jawaabi lahayd okay de waayi baad ugu jawaabaysaa sababta waxa weeyaan haddii aad qofka sababa sii weydiiso oo aad sii daba gasho naftaadii baanad ixtiraameyn laakiin haddii aad halkaa kaga hadho oo waxa weeyaan si kasta oo uu qofku kuulan wen yahay aad istiraahdo dee waxa weeyaan cid kasta waa replaceable oo qof kasta waa la bedeli karaa horta ma aaminsantahay cabdallo qof kasta waa la bedeli karaa qof kasta waa la bedeli karaa si kasta oo qofku kuulan wen yahay ama uu u shidan yahay ama uu u ballaaran yahay waa replaceable cid aan la bedeli karin ma jirto ha qof kasta waxa weeyaan qof kaloo kasii fiican ayaa jira marka jacaylku horta qofba sibuu u qiimeeyaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay jacaylka runta inoo dhiman yahay oo qofku markuu guursado unbuu jacaylka caadiga u arkaa horta markaasuu jacaylka rasmiga uu jira inta badan waxyaabaha jacaylka yani burburiyaan waxaan idhan kara horta isku tanaasul la-aan iyo 4 farood bay kugu taagtay adna 6 ku taag iyo yaan lagaa dareemin iyo is adkee iyo dukudhima horta inta baabisay wayta midda kale hadda xataa maalinba waxaan soo qoray yani qaladkii ugu weynaa aad naftaada ka gasho waa maxay yani dadka badankooda waxay kusoo qorayeen yani qof aan ii qalmin baan la socday waan isweydiiyey deena waxaan xasuustay inay de markii qofkii jacaylka kala dhamaadan inay iranayaan nin qofkaas la socotay iyo moogta waxaanay eegin ama aanay daraasadeen markaad qofkan haasaawisiin horta qofkan ma isgeli kartaan dabeecadihii horta waxa muhiim inay dabeecadu isqaataan dad baa maynaysa balaas dad baa balaas muhiimadda horta marka la haasaawayo inaad ogaato qofkan ma isqaadi kartaan ma wada socon kartaan guul iyo hadaf iyo gool ma gaari kartaan sidoo kalena dadka qaar waxaa jira dee waxaad mararka qaar baranaysaa oo aad jeclaanaysaa oo dooqu kaaga dhacaya qof aan kuu qalmayn oo kaa hooseeya odhaah yar baa waxay tidhaahdaa I lowered my standards for you and you still didn't reach them yani waxaan qabkaygii baan hoos kugu soo dhigay still waad soo gaari weyday xataa anoo hoos usoo dhigay baad soo gaari weyday marka talada ugu weynee anigu aan siin lahaa qof dadka yani dee barnaamijka jacaylka maaragtay ku foogada ama wadadiisa haya horta marka koowaad waxaad eegtaa qofkan inuu yahay qof kuu qalmayo dee hadduu qofku kuu qalmayo oo waxa weeyaan uu yahay qofku qof aad isku level tihiin markaasaad jeclaan karaysaa waxa weeyaan dee jacaylku kuu furanaya laakiin hadhow tole waad iska qomameynaysaa waxa weeye waxaad odhanaysaa neo qofkan horta aan la sheekaysan jiray ama aan rabi jiray maxaan ku rabay taas malaa waan ku yar kala duwannahayo يعني قفك حتى هادو دي ايضا حتى اسكو ليفل انا ايضا اهين المهم هداد قفكان dabeecadihii aad qof ku dooran lahayd haddii uu buuxiyo waxaan aaminsanahay inaad si fiican aad nolosha isula jaan qaadi karaysan taas uun baan anu aaminsanahay laakiin cidina ma dhamaystirna laakiin dabeecada isqaadan iyo dabeecada aan isqaadani baa jira moogta waxyaabaha qaar adigu yani aad habi ku ahayn oo kale yani waxaa dhici karta inaad yani adu aad jeclayn tusaale ahaan oo kale yani qof maanta oo dhan tiktok soo duuduubaya oo kale adoo inaad iska jeceshahay qof dee iska degan oo joogiisu degan yahay oo kale yani dabeecada in isku qaadan karin waxaas aydin isku gelaysaa ma jeceshahay inaad gursato ama aad nolosha la qaybsato qof tiktok ku jiro social media iska caadi weyn kaliya waan san isku fahnuun weeyaan laakiin waxa jira waxyaabo isku dadku badanka
siyaabo kala duwan bay maaragtay ay u micneeyaan laakiin saameyn weyn ma laha qofku inuu tiktok ku jiro tiktok waa akoon de akoonkiisa lama odhan karo qofka noloshiisa miyay waxa weeyaan aad ku jeclaan karaysaa ama aad kaga tegi karaysaa akoon macno badan ma samaynaysa almuhiim haddii aan anigu nacabahay oo kale inay isticmaasho oo kale laakiin qofkii aan doonayo waan isku dayayaa inaan qofka aan ka reebo ama aan tuso markaa ma jeclide haddaad ka reebayso lacalla oo kale haddii aan nacabahay inay qofkaas dad kale iga arkaan oonan habi ku ahayn waan u sheegaya waan ka dhaadhicinaya yacni waan tusayaa siyaabuhu u xun yahay oo kale ma hinaasi baata dee kolley waa wax nagu abuuran in intaa leeg baad hinaasi tahay waa wax ragoo dhan kooda abuuran baan aaminsanahay ibni aadankanu ka abuuran ma kantarooli karaysaa laakiin sideedaba waan kantarooli karaya waana qarsan karaya waana ilaalin karaya dadka qaar waxaa jira qofka ay ka hinaasaan dilaba ilaa intee leeg buu hinaasigaa heerkaas mala soomaalidu kuma badna laakiin turkidan ku arkay turkida ayaan ku arkay nin gabadhiisii litir kusoo tuuray litir oo hinaasay midda kale ma aragtay ninkan tiktoka ka jaasay ice creamka hablaha kaga jaasisiiya nin baa buu toogtayba yacni hinaasa gabadheeda maxaad iiga ciyaarsiinaysaa wuu dhintay miya ma imuu dhiman laakiin si uu joogaa imika nin baa u toogtay oo xabad ku dhuftay marka inagu horta heerkaa dilitaan يعني دل محاق قارسين كرا بيش وعيبي يعني واحد قروح بدان داد فهم ودان دي ميل لغو كلا ديفا تحسد موقت لكن سي المهم قفك ولا قريب كريم هذيك إسلالت هذا سؤال شك ويديو أظن متعاش حي قفتي يعني تيك توك أمان تورن جو دقن والله نيو أنا قضبة بدن بند عن قفك دوران لها قضبك قفك إنه أما تيك توك كتير أما يوتيوب كتير معنا إن يرنا كما معناها معنا بدن ما سمينا قفكو noloshiisa wuxuu jecel yahay isaga u xora ha sameeyo haday ku faraxsan tahay inay TikTok iska duubto ama maaragtay Facebook iska duubto ama YouTube intay wax iska duubto soo dhigto waxa weeye iyada u xora laakiin qofka noloshii kale waxa weeyaan kaalin inta leeg buu kaga jiraa taas horta muhiima qofku hadii uu maaragtay noloshiisuba ay TikTok un tahay oo marna comment eegayo marna taasoo kala waa problem laakiin hadii qofku waxa weeyaan noloshiisa kale wato laakiin uu mararka qaar jecel yahay in la arko de waa wax iska caadi ah anigu waa tan la arkayo de marka ma aniga wax xun sameynaya hadan dadka qaar waxaad arkaysaa social media ku jiro koonaya anigu gabadh caana ma guursadeen adigu maxaa tahay marka waxaad adigu sameynaysa de hadaad wax xun u arkayso maxaad u sameynaysaa in the first place laakiin waxaan aaminsanay had boqofku hoos isku fahantaan iyo saad ka dhigato waa run mararka qaar waxaan aaminsanahay haddii qof aad waxa weeyaan isjeclaataan oo waxa weeyaan aad deeply aad isku jeclaataan in social media hawaaba ka wada tanaasuli karaysaa wax weyn maaha anigu soo iminka kula hadli maayo waa la iga saari karaa social media ba waxa weeye haddii aan arko wax kale oo ka sii weyn ama waxa weeyaan perspective kale ama goal kale aan arko de waa wax aan hore uga socon karayo oo maaragtay aan ka tanaasuli midda kale waxyaabahan la yaabo mataqaana yani waxaad arkaysaa nin ixtiraamaya xaaskiisa ka dambeeya madaxa saaranayo oo dadkii kale leeyihiin hebli way ka adagtay hebli way fash wuu sixran yahay waa sidii hadallada dadka ugu badan ay yidhaahdaa waa dumarka marka okay dumarku haddii uu ninku u jilicsan yahay oo si fiican ugu soo jeedo na waxay leeyihiin waa nacas iyo kaani naagtu way ka adagtay hadduu nin adag yahay oo يعني ده قلفسنا وحنا يعني كاسوا مد حيوان أو ده ما ركت عقل هرت ما السن بلوجا أمان هرمايو السن بلوجا أمان هرمايو والله أنا هرت كنت واخ لكن واحد قروح بضم متقنع يعني هذا دون سنة نقول الدجن أو هبي أو فرح سنة تكون ولاته نقولش إن ما حد قصة ما دجن سام بدك إسكا هاي استيدوك يعني السن بيدين مدينيان هذا مروده الحاجة صارتنا كم مدينيان هذا إذا دايس كويرة يعني حالك إنه أيضا فعلا إذا مدينيا يعني نلش شو ده بتصل قاس على وابو مسلسل عادي وحما كتش على هايبة نيونا درويحين جورك سيدي سبب شرفت وكل جورجين برتينا كويس واحد شرد ضد سنين يعني برتين كنت عينهين وارن سيدو كلا واحد شرد ضد شعل إني guurkooda ama noloshooda soo bandhigaan haddii xataa aad hobbigaagu yahay inaad guurkaaga ama noloshaada soo bandhigto dee waxaad soo bandhigtaa inta aad ogoshahay inay dadku kaa ogaadaan waxoo dhan dee dibadda ha keenin sida ninkii nin tiktok aan maalin ka daawanayay wuxuu lahaa
go-eedayna tusaysaa daaheedaanu garanaynaa buu ku leeyahay sokorta halkay dhigataad naqaanaa biilku xilligu dee noo soo duub sariirtana waanu aragnaa noloshaadan social media iyo tiktokaba hadday noqoto bal noloshaada kala baryada nooga war markay kamaradu baktiisan tahay haa xaqiiqada xaqiiqada ilaa had wallahi niyo anigu markay kamaradu baktiisan tahay horta family man baan ahay nin xoog iyo xoog familka ugu xidhan oo familka u booqda oo waxa weeyaan marba xaafadaha waxa weeye familkayga ayaan horta aan aad u tagaayo waxa weeyaan aan ku xidhanahay sidoo kale ciyaalka ayaanu xidhiir fiican leenahay oo marka aanay kamaradu baktiisan tahay meelaha haddaan doono ciyaalka ayaan kubadda kula ciyaaraa oo waxa weeyaan haddaan arko aan waqti fiican la qaataa noloshaydana saameyn weyn kuma yeelanin social media oo maaragtay sidii aan berigii hore ahaan jiray iyo sida aan maanta ahay macnaha dee iskuma arko maanta nin balaaye ka dhacday oo tegey from the beginningkii baan isku arkayayba anigu ilaa marka even when I was a boy I knew I am the man xataa marka yaraa waan dee sida aan iminka isku arko baan isku arkay waxa weeyaan dee qof yani dee macno leh un baan isku arkayay laakiin waxa ugu weyne dadku ay iweydiiyaan marka aanu meelaha isku aragno waxa weeyaan marka social mediaha commentiyada iyo dadkan faraha badan leh marba dee wax kaaga soo qoraya saameyn intee leeg bay kugu yeelataa anigu haddaan tusaale dadku saasi koonay anigu haddaan tusaale ahaan social media ku jirnaa waxa la ii soo qorayo maan handal gareeyeenba fahmaysaa marka waa sida aaminsan marka aanu qofka aan yani ku dhex jirin anigu waxaa xasuustaa maalin aanu bas soo wada raacnay bas baan soo raacay dabadeedna dhalinyaro aan maaragtay isaga fadhinay social mediahu ku jiray dabadeedna siduu marba wadwaday tiktok uu isaga daawanayay aniguna koonahan daaqadaan fadhiya isaguna igu xigaa uu isaga daawanayay dadku waa adiga arkay oo markuu qof moolka isticmaalayo wadla yara qashaysaa haa waan ku yara hadhay suu wadwadayo haa ayuu tiktokii ayuu video aan leeyahay baa kasoo horbaxay dabeedna suu yara istaagayo maasuu yara daawadayo dabeedna markaasuu intuu commentiga furay buu qosol yar kaga bixiyey iska sii dhaafay marka mana garanaya inaan aniga ahay qofkan ag fadhiyo dee qofkan uu daawanayo comment garaynayo marka dadku qof kastaa meeshuu doona caalamka ha ka joogay waxa weeyaan impressionkiisa sida uu markaa dareemayo ayuunbuu comment kuugu qorayaa ee maha sida uu qofku siduu kuu arko cidina kuma necba qofina kahama fekerayo oo ma laha qays waa kumuu seexan waa inaan commenti ka bixiyo xun oo aan soo caayo ee waxa weeye markaa 10 sikine uu videogaagu soo agmaray xaaladda uu ku sugan yahay ayuunbuu dhiibanaya adna hor uga soconaya Tanzania maalmo dhaxaas aan tagnay ayaa nin baa jira dhalinyara dhowr jeer ninkaas commenti caayay soo qoray markaan imka hadduu qof commenti caayay soo qoro waan ku yara dhuftaayo waan eegaa ma ogtahay ninkaa waa arkay sawirkiisa si fiican baa u arkay Tanzania anagoo joogna Dar es Salaam ayaa aniga maawel baanu hayno niman dhalinyaro Soomaaliya baan istaajiyay anagoo gaari la socona dadna waanu isla hadalnay YouTube-kiina aan daawanayo ku soo dhawaaday magaalada waa kaasoo raggii markaanu sawiraan yara galgalnayo ninkii ayaa soo nimanka ku dhex jiraba ninkuun baan u yar fiirsadayo waa nin gaaban ninkii baanu sawir wada galnayo maaragtay aad nooga sheekeyn social media ay ku xidhay markaanu ka dhaqaaqnay ayaan ku dhimaawelow ninkaasoo garanaysid siduu uu caayo ha commentiyo badan oo cayana uu soo qoray Instagram-kana dhowr jeer buu message request-ka wadiga arkay message caya ayuu soo qoray oo cayo hadana markaanu is aragnay kiiba maaha marka caydaas de niyad kama ahayn laakiin abi markaas uu halkaas isku leen lahayn waa impression qofku marka uu dareemayo ayuu buu ku qorayaa inay noloshaada saamayso oo maaragtay ay noloshaada wax weyn ka bedesho ama aad ka warwarto na waxa weeyaan ma fiicna Abdallow imika dhalinyaradu ma garanayaan meel ay ka bilaabaan macnaha qof kasta uu lunsan yahay oo waxa weeyaan wuxuu rabaa inuu wax sameeyo laakiin ma garanayo meeshuu ka bilaabi lahaa waa maxay talada aad siin lahayd horta muhiim maaha inuu horta qof walba
oo dee horta caan u noqdo muhiim maaha qof walba inuu hogaamiyo u noqdo muhiim maaha qofku inuu yani nolosha meel aad u sarreysa uu ka gaadho yani imikada laftirkeeda adigoo noloshaada la daala dhacay lagu odhan karaa halgamaabaad tahay qof walbaa meel buu ku fiican yahay qof walbaa meel buu ku fiican yahay ee laakiin waa inaanay ka baqanin oo keliyaata inay isku dayaan qof walbaa wuxuu aada ugu wanaagsan yani qof walbaa meel buu ku wanaagsan yahay ee laakiin dhibaatooda xaggee ka timi yani isku daygii yani qof walba baqan adiga laftirkaaga markii aad bilaabaysa youtube-ka yani markii hore waad yarada moogtay waad yara jajakaliso armaasaa laga arkaa armay dadku saa ku dhahdaan arma yani waxaa yani isweydiinaya yani falcelinta ay dadku ka gudbin doonaan yani in isku dayaan oo keliyaata dhowr waxyaabood hadduu cod wanaagsan yahay hadduu ku wanaagsan yahay inuu wax duubo hadduu ku wanaagsan yahay inuu xidhid garayo hadduu ku wanaagsan yahay inuu wax dhiso waxaan aaminsanay wuu helaya meeshii uu ku fiicnaa qofkaas wuu helaya qabyaaladuna imika intan dambe waxaad moodaysaa inay aad ay u soo badatay yani kala tafaraaruq fara badan baa imi yani inay taasna ay aada uga wantoobaan xataa laftirkooda haddaa xataa su-aalaan weydiiyo waar weli miyeedan aragteen qof qabyaalad ka hadla oo weli heer gaadhi ma jiro oo la maamuuso anigu waxa ugu weyn intaa dee social mediaha aan ku jiro aan afkayga ka dhowra waxa weeye qabiil weligee intaan noolaa qabiil maan soo hadal qaadin ama kayga ha noqdo ama mid kale ha noqdo ama qabiilada soomaalida soo in laga hadla wax caadiya maaha maba soo hadal qaadaba mana jecli inaan ka hadlo wax macno fara badan oo ay leeyihiin oo ay ku sii fadhiyaan ma jiro 9 tobig oo kale oo ka hadashaa bannaan maxaa kugu soo oo weliba loo baahan yahay dadkii waa wada walaalo meel la kala tegi maayo meel la kala tegi maayo marlaba meel lama kala tegayaba maxaa dadka loo kala guri maxaa dadka isugu diri maxaad kana wareeray anaa la dheeri anaa la gaa waxaas almuhiim waxaad qabsatid aad naftaada u tirtid un baana dalkaaga iyo dadka wax ugu qabanaysa waaba intaaba